kula wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa hadii aan daawadayaal halkan idinka soo gudbin jirnay barnaamijka Madhaafaan oo isagu aad daawataan habeenka Sabtida soo galayso jimcuhuna uu sii galbanayo barnaamijkan ayaa daawadayaal waxaanu ku soo qaadanaa kula falanqeynaa toddobaadka u dambeeyay waxyaabihii ka dhacay dalka gudihiisa iyo waliba dibadiisa habeenkan caawana daawadayaal xubno aad u xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka Madhaafaan xubnaha aan daawadayaal ku soo qaadan doono ayaa waxa ka mid noqon doona xaflad ballaaran oo loogu dabaaldegayay isla markaana loogu mahad celinayay gobolka Sheffield aqoonsigii uu siiyay Somaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa daawadayaal waxa kale oo ku soo qaadan doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland oo isla toddobaadkani dalka gudihiisa ku soo noqday kana waramay habkii uu dhacay codayntii loogu codeynayay Somaliland ayna ugu codeynayeen gobolkaasi Sheffield inuu yahay dal madax bannaan isla markaasina ay ku ictiraafayeen dhanka kale wasiirku waxa uu xafiiskiisa magaalada Hargeysa isla toddobaadkani ku qaabilay wufuud ka socota wadankaasi Sweden waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doonaa barnaamijkan inta aan ku guda jirno dhul gariir iyo waliba duufaano xoog leh oo ay dad badan ku dhinteen qaar kalena ku barakaceen oo ka dhacay jasiiradda loo yaqaano Solomon Island ee ku taala koonfur bari Aasiya xubnahaasi xubno kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno barnaamijka Madhaafaan iyo toddobaadkani munaasabad ballaaran oo lagu xusayay looguna dabaaldegayay aqoonsigii uu gobolka Sheffield aqoonsaday Somaliland ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay marwada koowaad ee jamhuuriyadda Somaliland xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland waxaana lagaga hadlayay looguna mahad celinayay gobolkaasi Sheffield isagu aqoonsiga uu siiyay Somaliland haddaba waxa goobjoog ka ahayd oo noogu sugnayd xafladaasi iyo dabaaldegaasi ka dhacayay looguna mahad celinayay gobolka Sheffield wariyahayaga Hamda Xaaji October munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay looguna mahad celinayay golaha deegaanka ee magaalada Sheffield oo dhawaan aqoonsi buuxa siiyay jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska isla waqti xaadirkan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay marwada koobaad ee jamhuuriyadda Somaliland marwo Aamina Waris Sheekh Maxamed Jirde wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda arrimaha gudaha qorsheynta qaranka xildhibaano asxaabta qaranka iyo kooxda fanaaniinta qaranka qurbajoog iyo dadweyne isugu jira rag iyo haween oo dhamaantood aad wajiyadooda ka dheehanaysid farxad iyo reerayn ugu horeyna waxa goobtaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko oo golaha deegaanka ee magaalada Sheffield uga mahad celiyay go'aanka geesinimada leh ay ku aqoonsatay Somaliland isagoo intaasi ku daray in xaafad kamid ah xaafadaha Hargeysa loo bixiyay Sheffield looguna magac daray magaalada Sheffield maanta anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda waxaan halkan mahadnaq uga jeedinaynaa golaha deegaanka ee magaalada Sheffield oo noqday hormoodkii aqoonsiga Somaliland oo sameeyay arugula oo taariikhi ah waxaan leenahay hambaliyo waxa kale oo ku darayaa in magaalada Hargeysa xaafad kamid ah aanu u bixinay Sheffield dhinaca kale waxa isaguna goobtaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda mudane Maxamed Biixi Yoonis oo mahadnaq ballaaran u diray golaha deegaanka ee Sheffield sidoo kale waxa uu sheegay in aqoonsiga Sheffield uu yahay mid taariikhi ah iyo waliba guul u soo hoyatay Somaliland dadka intooda badan ma arkaan qiimaha ay leedahay maalinta taariikhiga ee dadka reer Sheffield iyo councilkeedu ay gooseen inay Somaliland ictiraafaan اعتراف كاسو مهمة Somaliland jecel
ictiraafkaasi wuxuu ku yimi markay darseen ee arkeen dadaalka Somaliland samaysay markay noqoto xagga dimuqraadinimada, xagga electionska, doorashooyinka, xagga xuquuqul insaanka, xagga nabadgelyada, xasiloonida, iyo markay arkeen dadaalka weyn 23 sannadood ay samaysay Somaliland oo ahaa iyada oo guulisay shuruudihii ay dowladda lahaan jirtay. dhinaca kale waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde iyo wasiirka qorsheynta qaranka Saacad Cali Shire oo dhammaantood u mahad celiyay xildhibaanada golaha deegaanka ee Sheffield iyo jaaliyada reer Somaliland ee ka howlgashay sidii Somaliland aqoonsi buuxa ay uga heli lahayd caalamka. ugu dambeyntiina waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay xubno ka mid ah qurba joogta wadamada Ingiriiska iyo Australia oo ka hadlay faa'iidada aqoonsiga Sheffield iyagoo intaasi ku daray in qof kasta oo muwaadina uu ka qayb qaato ilaalinta qarannimada Somaliland. waa mid u baahan oo beginina waa step aad u wanaagsan councilka Sheffield uu qaaday runtii oo u baahan inaanu ku taageerno shacab iyo xukuumadba sidii loo sii dardargelin lahaa. laakiin anigu waxaan intaa ku darayaa oo oranayaa xukuumadda Somaliland iyo jaaliyadaha kale ee dibadda oo aan anigu ka mid ahay jaaliyadda Australia degan magaalada Melbourne ku dayda sida Sheffield community oo Soomaalida ay sameeyeen. haddaynu daawadayaal intaasi kaga nimaado xubinta ugu horeysiya barnaamijkeena ma dhaafaan iyo habeenkan caawa xubinta labaad ee aan ku soo qaadan doono ayaa waxa ay tahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa isla toddobaadkan dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu gobolka Sheffield ka soo gudoomay shahaadadii aqoonsiga ee ay Somaliland siiyeen. wasiirku waxa uu ka warbixiyay xaaladii iyo waliba habkii ay u dhacday codayntii loogu codeynayay inay Somaliland tahay dal gaarkii u taagan isla markaana lagu ictiraafayay. haddaba waxaa goobjoog ka ahaa kulankaasi Xamse Cali Bulbul. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixiyoonis oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku joogay dalka Britain kana qayb galay xafladii Sheffield ee golaha deegaanka magaaladaasi ayaa magaalada Hargeysa dib ugu soo laabtay. garoonka diyaaradaha madaarka magaalada Hargeysa ayuu kula hadlay warbaahinta. Maxamed Biixiyoonis markii ugu horreysay waxa uu ka hadlayaa socdaalkiisii Britain iyo xafladii Sheffield. alxamdulillah waan ka soo gaaray inaan ka qayb galo xafladii weyneed ee u dhacday aqoonsiga Somaliland ee councilka reer Sheffield ay u sameeyeen dadka reer Somaliland iyo wadankeena. ictiraafkaas oo ku salaysnaa horumarka ay Somaliland gaadhay xagga dimuqraadinimada, xagga doorashooyinka, xagga rule of law iyo horumar xagga nabadda iyo xasilooni iyo ayadu 23 sanadood gaar u taagnayd. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland sidoo kale waxa uu si kulul u cambaareeyay dilkii magaalada Galkacyo lagu dilay 2 sarkaal oo ka tirsanaa qaramada midoobay kuwaas oo nin hubaysan ku toogtay garoonka diyaaradaha ee madaarka magaalada Galkacyo. wallahi waxaan u arkaa inay aad iyo aad u foolxun tahay. dowladda Somaliland waxay qabtaa in aan cid UN-ka u shaqeysay cidnaba aan la dilin. waanu ka xunnahay. maamul goboleedka Puntland qudiyada way cambaareeyeen dadkaasi dad aan nala shaqeeyaan bay ahaayeen. aad iyo aad baanu uga xunnahay geerida foosha xun ee ku dhacday dadka United Nations-ka u shaqeeya. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixiyoonis sidoo kale waxa uu markii ugu horreysay la weydiiyey bal inay suurtagal tahay in isbedel ku sameeyo safiirada dalalka caalamka u fadhiya Somaliland. siyaasiyiinta wasaaradda jooga shaqadooda maaha. wasaaraddan ana ka boosa nin kalena boos kama aha. hase yeeshee aad ula socoto dabcan markuu qof wasiiri magaalo ama jaga cusub qabto wuxuu baahan yahay waqti siiyo
inuu darso inuu fahmo inuu arko performancekoodii howlaha laga qabtay wasaaradaha safaaradaha dibadda inuu eego tii loo baahan yahay tii aan loo baahnayn qorshaheedii baan wadaa insha allah ana si degdeg ah waqtiga habboon ayaan ku dhawaaqi doonaa wixii aan u baahday in laga bedelo waxay saxaafaddu weydiisay bal muhiimadda aqoonsiga Somaliland u leeyahay in Sheffield oo ah golo deegaan ay aqoonsato iyo isbeddelku ku keeni karo dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee Somaliland waxaan qabaa arrinkaas inuu maaragtay arrin aad iyo aad u fiican u yahay arrin ina siinay opportunity in magaalooyinka kale ee Ingiriiska ku daydaan caalamka intiisa kalena ku daydo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan dadka reer Sheffield ugu mahadnaqaynaa iyo councilkeeda shaqada fiican ay ummadda u qabteen waxaan qabaa inay halka ka socon doonto oo aanu dawladda kale iyo magaalooyinka kalena ixtiraafi doonaan waana mahadsantihiin dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay toddobaadkani wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo safiirka u qaabilsan waddanka Sweden Somaliland iyo waddankaasi aynu jaar ka nahay ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo waliba safiirkaasina waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo cilaaqaadka ka dhaxeeya labada wadan haddaba bal aynu eegno amuurtana daawadayaal wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yunis waxa xafiiskiisa wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ku qaabilay wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden oo hogaaminayay safiirka Somaliland iyo Soomaaliya oo qaabilsan dalka Sweden iyo ergeysro ka socday wasaaradda arrimaha dibadda oo qaabilsan dalalka Geeska Afrika kulankaasi Mr. Biixi waxa ku helinayay ambassadorka Somaliland u fadhida dalka Sweden ambassador Roda iyo afeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Mr. Sudi wasiirka arrimaha dibadda Somaliland kulanka uu la yeeshay wufuudda dalka Sweden wuxuu ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen laakiin markii kulankaas uu dhamaaday ayuu barxadda wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland kula hadlay warbaahinta wuxuu wasiir Maxamed Biixi uu sheegay in laga wada hadlay sidii Swedishku ay kaalin firfircoon uga qayb qaadan lahaayeen sanduuqa Somaliland Funding oo sanduuq dalalka deeqbixiyaashu ay ku soo shubaan lacagaha deeqaha sidoo kale waxa uu sheegay in tababarada dhinaca saxaafadda iyo amuuro kale uu kala hadlay wufuudda Swedishka Mr. Biixi waxawli bismillahir rahmaanir rahiim waxa halkan maanta nala jooga laba ambassadorkii Sweden ee Soomaaliya iyo Somaliland qaabilsana iyo envoyga Swedishka ee Horn of Africa ka madaxda oo maanta shir halkan ugu lahaa shirkaas oo xuseynaya sidii labada wadan ay u xoojin lahaayeen cilaaqaadka ka dhaxeeya sidii waxa kale oo la jooga ambassadorada joogtay Sweden iyo Suudi oo spokesperson-ka waxa markaa aanu halkan kaga wada hadlaynay sidii aanu xoojin lahayn cilaaqaadka ka dhaxeeya Sweden iyo dawladda Somaliland waxyaabo badan bay nala qabtaan waxyaabo badan baan ka codsanay oo ka mid tahay inay ka qayb galaan Somali Development Fund-ka waxyaabo badan baan ka wada hadalay oo ka mid yihiin doorashooyinka soo socda miidiyaha horumar iyo shir ay qadooneen ay joog qabtaan oo doonayaan nagu casuumaan marka arrimo labada wadan ka dhaxeeya iyo sidaan cilaaqaadkiiga xoojin lahayd ay shirkayga maanta u badnaa waa tawasiir muddooyinkii ugu dambeeyay Swedish waxay moodaan halkan aad ugu soo noqonayeen toddobaadkii hore iyo xubno kale baarlamaan ay mid marka ma waxba iska bedelay xiriirkii Swedishka iyo Soomaaliya aad bay isaga bedeleen cilaaqaad fiican baan la leenahay oo la socotaa waxa noo joogtaa safiiradayadii waxaan jecelahay inaan sii kobcino waanu casuunay shirar badan bay doonayaan inay sameeyaan oo ay nagu soo casuumaan oo khaasatan xagga horumarka xagga dhaqaalaha xagga nabadda xagga wada hadallada anakii xamar noo dhaxeeya arrimaha faraha badan ee khusayay Somaliland nagala hadlayeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cilaaqaadka aan la leenahay Sweden safiirka u qaabilsan dalka Sweden Somaliland iyo Soomaaliya ayaa isna sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii uu soo noqon lahaa mid fog oo wanaagsan dhinaca diblomaasiyadda intaasi kaga soo gudubno xubintaasi xiisaha badnayd kana hadlaysay kulanka ay yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland iyo safiirka waddankaasi Sweden u qaabilsan Somaliland iyo waddankaasi Soomaaliya xubinta aan markan gacanta ku hayo ayaa waxa ay tahay
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa iyadu ka gudoontay ardayda dhigata dugsiyada Salaama iyo waliba maamulka dugsiyada Salaama qadar lacageed oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan horumarinta wadooyinka. haddaba xubintaas ayaan daawadayaal jaleeci doona waxaana goobjoog ka ahaa wariye Muuse Warsame Guuleed isagaana xubintan ka diyaariyay ee daawasho wanaagsan. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa deeq lacageed oo cadadkeedu dhammaan $2,710 ka gudoontay dugsiyada Salaama. lacagtaasi oo ay ardayda dugsiyadaasi kaga qayb qaadanayaan horumarinta wadooyinka waxa ay qayb ka tahay tabarucaadka qaybaha bulshada Somaliland ay kaga qayb qaadanayaan qaaraan ururinta horumarinta wadooyinka. munaasabada gudoosinta deeqda lacagta oo lagu qabtay xarunta dugsigaasi waxa hadal ka jeediyay maamulaha dugsiyada Salaama Nuur Cumar Huraash waxaanu yiri waxaan halkan kugu guddoonsiin doonaa lacag ay qadarkeedu tahay $2,730 oo kaga qaadan doona haddii aan nahay dugsiyada Salaama biyogiska wadooyinka Somaliland taasoo aad u tiwaajibtaan. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Samsam Cabdi Aadan oo halkaasi hadal ka jeedisay waxa ay ku amaantay ardayda iyo maamulka dugsiyada Salaama dadaalka ay muujiyeen waxaanay tiri wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka waramay 3 kooxood oo ka socda shirkadda Dolson Energy oo ay u kala diri doonaan gobolada iyo degmooyinka dalka kuwaas oo iyagu sahamin doona suuna eegi doona macdanta iyo tamarta kala duwan ee dalkeenan ku duugan. haddaba amuurtaasi waxay noo eegaya oo goobjoog ka ahaa markii uu wasiirku ka warbixinayay kooxahaasi loo kala dirayo gobolada iyo degmooyinka dalka wariye Muuse Warsame Guuleed. mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland ayaa sheegay in 3 kooxood oo ka socda shirkadda Dolson Energy Group ay dhawaan u kala bixi doonaan gobolada iyo degmooyinka dalka halkaasi oo ay ka bilaabi doonaan hawsha sahaabinta macdanta ee ay dalka u yimaadeen. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Injineer Xuseen Cabdi Ducaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay shir ay isugu yimaadeen maanta madaxda shirkadda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta lagu go'aamiyay habka iyo hanaanka ay shirkaddan Shiinaha ah ee Dolson Energy Group u bilaabayso hawsha taasi oo tilmaamay in ay tahay mid muhiim u ah bulshada. shirkaddaas waa shirkad muhiim ah maanta inala joogta ee Chinese-ka ah hawl muhiim ah dalka ugu wada niyasami weyn iyo kalsooni weyn baan ku qabaa dalka inay waxyaabo badan uga qaban doonaan xagga macaadinta. waxaan markaa runtii kula dardaarmayaa kana baryayaa shicibka dalkeena ku nool ee deegaanada ay imanayso shirkadani maanta deegaanada ay imanayso ayaamaha labada wiil soo socda in shirkadda la soo dhaweeyo gacmo furan wanaag la tuso inaynu diyaar u nahay dalkeena in moogtay yani aynu maalgashiyaal iyo sharaa'ic ajaanibka moogtay inaynu ogolahay inay wax inooga qabtaan oo inaynu dalkeena khayraadkiisa ka faa'iidaysano oo aanay inaga noqon inay dareen qaataan muxuu ahaayey sharaa'ic ajaanibka inaan meesha laga rabin ama ajaanibka moogtay yani loo arko dad aan reelin moogtay aan la doonayn. markaa shirkaddaas dadka runta qobada ee ka socda waxaan mar labaad ka dalbayaa kana codsanayaa kana rajaynayaa shicibka deegaanada ay tegayaan ku nool in ay weji furan iyo niyad sami iyo soo dhaweyn tusaan.
agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Siciid Axmed Jibriil oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in khubarada shirkadda Thomson Energy Group ay mudnaanta siin doonto sidii ay u soo saari lahaayeen dhuxul dhagaxda oo bulshada Soomaaliland baahi weyn u qabto waxaanu yiri dhuxusha waxaan tuunsanahay wadankeena meelo badan inay dhuxusha ku jirto meelaha badan ee dhuxusha ku jirto ilaa intaan soo jirnay Soomaaliland marka la yiraahdo way iska taalay bahashaasi cid ka faa'iideysatay ma jirto waxyaalo badan oo ay nagala maqan tahay waxyaalaha ay nagala maqan tahay dhuxushaasi waxa kamid ah koronta laga dhalin karaa maanta haddaan tusaalaha ugu fudud soo qaadano waa magaalada Hargeysa qaybdan inay bastiisan tahay wadadkii maanta ay fadhiisatay warshadii dawladda lahayd ee qayb ahaan shirkadda magaalada marka haddii dhuxusheena aan ka faa'iideysano waxaan helaynaa koronto jaban oo wax kasta ku samaysan oo ku horumarino nin walba gurigiisa warshad yar oo fudud intuu dhigto koronto ku filan oo helo uu kala soo baxo nolol maalmeedkeena innaguna maanta waxaan bixin kari laanahay oo culays nagu ah dadkeena oo dan yara wadankeena oo cayd ah in aan iska bixino iftiinkii aan shidanayna taas markaa shirkaddu waxay muhiimadda saaraysaa waa dhuxusha meelo badan oo waddankaana waa loo kala baxayaa waxaan sii adkaynayaa hadalka wasiirka tiim walboo socda khubara ka tirsan shaqaalaha wasaaradda iyo madaxda la soconaysa marka ay yimaadaan in la soo dhaweeyo sahanka sameynayaan laga caawiyo kulankan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo khuburada iyo madaxda shirkadda Thomson Energy Group waxa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiye ku-xigeenka shirkadaasi Mount G waxaanu sheegay in shirkadoodu dhawaan bilaabi doonto wajigii labaad ee hawsha sahaminta macdanta ee ay u yimaadeen Soomaaliland taasi oo uu rajeeyay inay ku guuleysan doonaan waxaanu mahadnaq u soo jeediyay mas'uuliyiinta xukuumadda gaar ahaan mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta daawadayaal halka barnaamijkaasi kala socotaana waa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhulgariir iyo duufaano ayaa ku dhuftay jasiiradda Solomon Island ee ku taala koonfur bari Aasiya waxaana la soo sheegayaa in dad kor u dhaafaya 20 qof ay halkaasi ku dhinteen halka dad kale oo kumanaan kor u dhaafayaana ay ka barakaceen guryahoodii haddaba daawadayaal warbixintan waxaa ka diyaariyay wariye Maxamed Ibrahim Dimbil ayaana inoo akhriyay oo isagu soo diyaariyay xubintani ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay in ka badan 15,000 oo qofna way ku barakaceen dhulgariir iyo duufaano isxigay oo ku dhuftay jasiiradda Solomon Island ee koonfurta bari ee badweynta Pacifica sida wararku sheegayaan dhulgariir qiyaastiisu gaarsiisan tahay 6 Richter qiyaasta dhulgariirka lagu cabiro ayaa ku dhuftay caasimadda jasiiradaasi ee Honiara waxa kale oo iyaguna inta badan jasiiradahaasi ka dhacay duufaano ka dhashay roobab culculus oo maalmihii u dambeeyay si isdaba joog ah uga da'ayay dalalka Australia iyo New Zealand ayaa ilaa iyo hadda jasiiradaasi gaarsiiyay gargaar degdeg ah hase yeeshee waxaa jira cabsi laga qabo in khasaaruhu intaasi ka sii badan yahay oo masiibo bini'aadamnimo ay halkaasi ka jirto haddii daawadayaal dhulgariirkaasi iyo duufaanadaasi ku dhuftay jasiiradda Solomon Island aynu intaasi kaga nimaadno markan waxaan soo gaarnay waqtigii aanu daawadayaasha ku nasin lahayn dhanka heesaha dabacsan heesta aan daawadayaal idinku nasinayo ee aan habeenkan caawa ah sida gaarka ah idinka soo xulay qolka kaydka ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay tahay hees aad u macaan oo ay ku luuqayso fanaanada Sahra Ilays heestan ayaa ah heesta berbera bal haddaba daawadayaal heestaasi oo aan jecelahay in ay idin qancin doonto oo aad madaxa luxi doontaan oo aad ka wada heli doontaan ayaa waxa ay ku bilaameysay sidani
daawadayaal haddii aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi berbera ee ay ku luuqeynaysay Sahre Ilays waxaynu soo gaarnay amintii aan isku macsalaameyn jirnay hawada barnaamijkan daawadayaal dhanka kamarada iyo lightinka waxaa isku howlay tacabadana geliyey Cabdi Cumar Jibriil Salsan dhanka editonkuna waxaa door muhiima ka ciyaaray Cabdi Safwan anigoo Jamaal Axmed Naasir iyo waliba Maxamed Foosi Maxamed waxaanu idinku dhaafaynaa barnaamijkan mid lamida inta iskugu iman doono is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu